بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته farxad iyo reyn iyo fursad ba ay tahay inaan kulankan caawa idinkala soo qayb galo marka ugu horeysa waxaan fursadda uga faa'iideysanayaa inaan dhammaantiin idin wada salaamo si gaaran inaan ugu mahadnaqo maamulkii madasha ogaal inoo suurtageliyey kulankeena inaan isugu nimaadno inaan ka soo qayb galana igu casuumay sidaa loo tilmaamay waa dhowr fadhi oo taxanaa waxay ku saabsan yihiin cilmi afeedka iyo luqadda sida cinwaankuba inoogu qoran yahay cilmi afeedka iyo luqadda iyo af soomaaliga waa saddex isku xidhan wax ka dhaxeeyaan caawa waa fadhigeennii koowaad caawa waxaynu ka hadli doonaa uu noqon doonaa luqadda ama afka waa laba erayo isku mid ah iyo cilmi afeedka ayaa waxaan ku samayn doonaa guudmar kooban marka aynu ka hadlayno cilmi afeedka iyo luqadda wuxuu ka kooban yihiin waxyaabo muhiim u ah dadka ku shaqeeya af soomaaliga maadaama af soomaali ku shaqeeyaan xirfadlayaasha adeegsada sida macallimiinta bahda warbaahinta garyaqaanada iyo wixii la midaba way u baahan yihiin waa inay wax ka ogaadaan agabka afku waa agab ay adeegsadaan laakiin injineerkii dhakhtarku sida ay iyagu ugu baahan yihiin oo kale uguma baahna dhinaca way uga baahan yihiin marka waa inay fikrad guud ka qaataan ay fahmaan waa lagama maarmaan sidoo kale dadka af soomaaliga cilmi baadhista ku samaynaya waa inay wax fiican iyagu ay ka sii qaataan oo inta kale ka badan dadka maadada macallimiinta maadada af soomaaliga dhigaya iyaguna waa inay muxuu ahaaye af iyo luqad iyo waxa ay yihiin iyo waxyaabaha la xidhiidha iyaguna waa inay ka haystaan fikrad fiican waxaan isku dayi doonaa marka inahaasba dabcan wax weyn kama qaadanayno laakiin iftiimin kooban ama guudmar kooban intaaba wax ku biirin doonta ayaan isku dayi doonaa inaan halkan habeenada aynu wada joogno dhowrkaa fadhiya inaan kusoo bandhigo dabcan maadaama cilmi afeedku uu yahay takhasus gaar ah wuxuu leeyahay erey bixinno cilmiyeedoo la adeegsado waxaan isku dayi doonaa marka erey bixinnada cilmiyeedee la adeegsanayo intii suurtagala inaan yareeyo kuna soo bandhigo luqadaha aynu garanayno isagoo af ingiriisiya ama isagoo carabiya ama mararka qaarkood isagoo soomaali ah way dhici kartaa inuuna soomaali wada lahayn maba wada lahaa waynu ognahay waayo wixii marba la adeegsadun baa erey bixin loo sameeyaa laakiin waxaan isku dayay inaan soo dhoweeyo marka horena intaan ka adeegsanayno inaan yareeyo marka fadhigeennan koowaad waxaynu kaga hadli doonaa laba arrimoodoo waaweyn qaybta ugu horeysa waa luqadda iyo tilmaamaheega luqaddu waxay leedahay tilmaamo luqadi waa maxay tilmaamaha iyo astaamaha lagu yaqaano na maxay yihiin ama dabeecadday leedahay maxay tahay waa qayb weyn saldhigna u noqon doona fadhiyada kale oo dhan cilmi afeedku muxuu yahay laamihiisa kala duwan uu leeyahayna maxay yihiin laamo kala duwan buu u qaybsamayaa marka caawa intaynu qaadanayna waa intaa weeyaan aynu eegno ta ugu horeysa luqadda waxa ugu horeeya waa luqadda su-aasha ugu horeysa imanaysa markii luqad laga hadlayo waxa weeyaan luqadi maxay tahay qeexitaankaygu muxuu yahay luqaddu marka ugu horeysaba waa astaan uu leeyahay aadanuhu xayawaanada kale ama noolaha kale lama wadaagaan dhawaaq way bixiyaan laakiin luqad ay ku wada hadlaan ma jirto marka loo eego sida tan bani aadamka ee dhammaystiran oo kale ah astaamaheeda wax way ka haysan karaan luqadda markii laga hadlayo laba qeexitaan oo muhiim ah ayaynu soo qaadan karnaa qeexitaanka aynu soo qaadanayno waa caalim cilmi afeedka dadkii wax ka qoray ka mid ahaa magaciisa la odhan jiray ibnu jinni qarnigii afraad ee hijriga ayuu noolaa waa qarnigii tobnaad ee miilaadiga bilowgiisii buu dhintay sanadku markuu 322 hijriga marka caalimkaasi waa qeexitaanada marka la eego sida
aan waxna iska bedelin uguna qadiimsan ee lahayuu ka mid yahay keligii maaha marka wuxuu ku sheegay inay luqaddu ay tahay dhawaaq ama cod bani aadamku isugu gudbiyo fariimaha bani aadamkaasina bani aadamka oo dhan maahay waxa weeyaan waa dadka ku hadla luqaddaas ayaa iskugu gudbiya isla qeexitaankaasi oo kasii yar faahfaahsan waxaa isna ku sameeyey caalimka kale luqawiga ah Ferdinand de Saussure la yidhaahdo waddankan Swiss buu u dhashay qarnigii 19aad dabcan 9 qarni buu ka dambeeya laakiin isna qeexitaankiisii oo kale ayuu siiyey wuxuu ka mid yahay marka la joogo qarniga 20aad ilaa qarnigii 19aad dabayaaqadiisii qarnigii 20aad dadkii saldhigga u dhigay cilmi afeedku ka mid ahaa marka halkaa marka la joogo luqadda waxaa lagu qeexaa waa codad ama dhawaaq bani aadamku uu wax isugu tabiyo waxa ay isugu tabinayaan waxay noqon karaan xog la isugu tabinayo waxaa kaloo la isugu tabin karaa dareen iyo fikrad qofku dareen uu qabo ama fikraddiisii ayuu kugu soo tabinayaa taas weeye luqaddu marka luqadda sidaa lagu qeexo waxaa muuqata dabeecaddeeda ah codnimadka ama dhawaaq inay tahay waa qayb weyn waxaa kaloo muuqata in wax la isugu tabinayo waa shaqada ugu weyn ay qabanayso haddii la yidhahdo shaqaday bani aadamka u qabataa waa maxay waa inay fariimaha u kala xambaarto ama ay xogta u kala xambaarto haddii la eego bani aadamkaa sifadaa la gaar ah baynu nidhi xayawaanadu noolaha kale marka loo kuur galo dhawaaq way leeyihiin laakiin dhawaaqyaday bixiyaan waa dhawaaqyo xadidan fariimo isugu tabiyaan laakiin fariimaha isugu tabiyaan waa fariimo aada u kooban ma dhammaystirna tusaale ahaan cilmi baadhisaha ugu badan waxyaabaha lagu sameeyey waxaa ka mid ah shinnida markii loo fiirsaday fariimaha waxay ka mid tahay noolaha aan bani aadamka ahayn ee fariimo hufan isu tabin kara laakiin haddana luqad sideenoo kaleeto u dhammaystiran oo ay leedahay ma jirto waxaa la arkay shinnidu inay awood u leedahay inay isu sheegto ubax ku yaalla geed masaafo fog u jira ama masaafo dhow u jira ay shinnida kale u tilmaanto inay geedka ubaxa ka doonto ay ubax si ay markaa ubaxi usoo jirtay malab uga samayso laakiin shinnida markii la eegay fariimaha ay isku tabinayso dhawaaq ma wada aha waxaa ka mid ah dhaqdhaqaaq ay samaynayso dhawaaqyo ay bixinayso hormoonno ay jirka ka soo daynayso waxyaabahaas waad aragteen xayawaanada kale riyaha iyo xoolaha iyo way is ursadaan waxyaaba isugu tabiyaan waxaa ka mid ah urta way hormoonno jirkoogu soo daynaya waxyaaba noocaas marka laakiin shinnidii markii loo kuur galay waxaa laga yaabaa in u tilmaanto geed masaafo dheer u jira ubaxa ku yaalla shinnida kale inay u tilmaanto dhaqdhaqaaqyo kala duwan markay samayso shinnidaasi toos inay u tagto geedkii iyadoon meelo kaleba marin ka soo goyso ubixii ay goobteedii kusoo noqoto laakiin markii shinnidu waxaa luqaddeeda uma tilmaami karto shay waxoogaa yar ka koreeya waxay u tilmaantay shay masaafo dheer u jira laakiin jiho toosana laakiin shay wax yar ka koreeya ama wax yar ka hooseeya hadday shinnidu halkan joogto waxa dhulka yaalla shinnida kale uma tilmaami karto ama wax dusheedan jooga aan gidaarka korkaaba gaadhsiisnayn marka waa yani waxay tusaale u tahay nuqsaanta marka bani aadamku waa astaan uu gaar uu leeyahay aynu eegno qeexitaankaa kadib luqaddu tilmaamaha asaasiga ay leedahay tilmaamo asaasi ay leedahay tilmaamaha asaasiga ah in marka hore aan kusii baraarugnaa waxay qayb u noqon doontaa cilmi afeedka markaynu u dhaadhacno waxyaabaha cilmi afeedku dabagelayo ayay noqon doontaa saldhig u noqon doontaa tilmaanta ugu horeysa ee ay luqaddu ay leedahay waa symbolic ama waa astaamo luqaddu waa astaamo astaan maxaa looga jeedaa ereyada aynu luqaddu ay ka kooban tahay unugyada ugu muhiimsan ay ka kooban tahay waa ereyo ereyadaasi ma aha tusaale ahaan miiskan waxaynu u naqaanaa miis luqadda englishkana waxaa lagu dhaha table marka miis waa astaan ay soomaalidu ula baxday laakiin ereyada ama dhawaaqa miis iyo isaga laftiisa wax xidhiidh oo ka dhaxeeya ma jiro
qolada kale Englishka ku hadlaana way la baxeen waa astaan sida hiraal imika looga iyo astaan ay u samaysteen oo marka astaanta aad aragtid ay hiraal kuugu soo dhacayso ama loogada shirkada ay leedahay markaad aragto shirkadii ay kuugu soo dhacayso ama cabdi qofka loo bixiyay markaad ama faarax ama aamina qofka loo bixiyay markaad magaca maqasho hebel kuugu soo dhacayo waa wax xidhiidhahoo qofkan markuu dhalanayay wax jirkiisa ka mida maaha magaciisa ama loogadu ereyada luqaduna waa sidaas oo kale marka waa wax astaan ah waa ta ugu horeysa sifada ay leedahay waa astaamaha marka astaamihii kale waxyaabo badan la wadaagi kartaa sida ishaarada wadada ku taala marka casaanka la arko gaarigu u joogsanayo ama la arko akhtarka ama cagaarka uu gaarigu u soconayo waa astaan wax ku tusaysa oo kaleeta ama calaamad sidaas oo kaleeta weeyaan luqaduna astaanta kaleeta ay leedahay ama tilmaanta kale ama sifada kaleeta ay luqaddu ay leedahay waxa weeyaan inay tahay structured waa wax habaysan waa dhisme ereyadeeda iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay sibaa la isugu habeeyaa waxay leedahay xeerar bay raacsan tahay aqal baynu iminka ku jirnaa aqalkan wuxuu aqal noqday jaajuurka laga dhisay ee laga sameeyey markii siyaabo gaara la isku kor saaray laakiin haddii jaajuurkaa la kale markii hore uuna isku rakibnayn muu ahayn aqal wuxuu ahaa bulukeeti meel yaallu ahaa sidaasoo kaleete ereyaduna macnay leeyihiin habab la isugu rakibo loo dhisana way leedahay waa xeerar sidaa darteed xeerka naxwaha xeerka sarfigu waa xeerarkaas marka la raaco ee qaabkaas loo dhisona luqaddu way leedahay marka af soomaaligu wuxuu leeyahay xeerar u raaco af carabigu wuxuu leeyahay xeerar u raaco ingilishku wuxuu leeyahay xeerar u gaaruhu raaco xeerar guud ay wada raacaanna way jirtaa tusaale ahaan markaynu qaybinayno luqadda lab iyo dhadig ingilishkuna lab iyo dhadig buu leeyahay carabigu lab iyo dhadig buu leeyahay inkastoo ingilishku mid kaloo saddexaad aan labana ahayn dhadigna ahayn uu leeyahay marka waa xeerar guud haba koobnaadaan oo ka dhexeeya way jiraan luqad walbana xeerarkeega ayay sii leedahay marka structured marka le way habaysan tahay hanaankeygii marka loo maro ayay shaqadii loogu talagalay ay qabanaysaa waa tilmaan kale oo ay leedahay waa dynamic waa shay firfircoon ma aha wax iska fadhiya meel inay dynamic tahay ay firfircoon tahay waxay keenaysaa masalan inay korto ereyadeeda siyaabo kala duwan loo adeegsado waxyaabo cusub hadday inagu soo kordhaan qalab cusub markuu yimaado markiiba ereyaa u soo baxa iyadoo laga tashaday ereyadaa la isku soo dubaridayna arki maysid dadku iyagaa markiiba ereyo si automatica u abuura mobile baa soo baxay inoo yimid markaasaa ereygii mobile baynu qaadanay waa luqaddu markii waxay la jaan qaaday baahidii way socotaa muxuu ahaa fariimaha la isku tabiyo mararka qaarkood SMS-ka intii aanu imanin teleefankani kii kale markuu jiray SMS fariimo yaryar oo la isku tabiyaa soo ma jirin dadka qaarkood markiiba fariimaha yaryar waxay u bixiyeen baqshad marka fariinta SMS-ku makuu soo SMS markay ka odhan lahaayeen baqshadii makuu soo dhacday baqshada berigii hore waxaa la odhan jiray baqshada envelope-ka lagu rido markii boostadu jirtay fariimaha lagu diri jiray markii qofka fariinta usoo dhacdo notificationka lagu baraarujinaya oo ekayd baqshadii deegaanada qaarkood markiiba soomaalidu waxay u bixiyeen baqshadii may soo dhicin marka markiiba waa laba erey mobileka laftiisii waa erey laakiin waa erey lasoo ergistay baqshadii waa isla erey soomaalidu ay lahayd loo adeegsan jiray warqadan wax lagu rida envelope-ka ah iyaga markiiba tan kale halkan kale loo soo ergistay marka luqaddu waa dynamic waxay la socotaa baahida dhaqsay ula falgashaa dhinaca kale waa ka dynamic way firfircoon tahay waxyaabo waxaa jira ama afkaar ama agab nolosheenna ka baxaya ereyadii arrimaha ku saabsanaa way iska dhintaan wixii baaliyoobaana way dhintaan wax cusubna way dhashaan way ku soo kordhaan markaasay luqaddu waxay noqonaysaa mar walbaba baahida dadkaa ku hadlaya ayay dhaqso ula jaan qaadaysaa waxaa kaloo ku jirta ma arkaysid qof waayaya wax uu ku sheego wax kasta mowqif kastoo aad la kulanto waad awoodi kartaa weedh arrintaa ku habboon inaad dhisto haddii lagu weydiiyo maskaxdaada meele ay kugu kaydsan tahay ma jirto weedhaha inta weedhood ee dhisan ee luqadda af soomaaligu ay leedahay madaxaaga kugu jirta meel ay kugu kaydsan tahay ma garanaysid laakiin xaalad kasta markaad la kulanto weedh ku habboon baad dhisaysaa
ereyadii iyo markaasaa macnihii ay kuu buuxinaysaa marka waxay si sahlay ula falgelaysaa baahidaada ay u buuxinaysaa wixii aan loo baahnayna ay meesha uga saaraysaa marka waa dynamic waa tilmaan kaloo muhiim ah iyaduna oo ay leedahay luqaddu tilmaanta kale ay leedahay iyaduna waxa weeyaan waa arbitrary ama waa heshiis social convention bulshada heshiis waa wax af Soomaaligu waa wax aynu isla ognahay qof ma leh keligii inagoo dhan baa isla og in miis la yidhaha miiskaa waynu isla ognahay qalin in la yidhaha qalinkaa waynu isla ognahay cidda isla og waxaa la yidhaha jamaaca luqawiya waa dadka luqaddaa ku hadla ayaa bulshadaa ku hadashaa isla og marka sidaa darteed ereyada af Soomaaliga ah bulshada Soomaaliyeed baa macnahooda isla og keligaa adigu wax ma samaysan kartid marka luqadda carabiga ah macnaha ereyada carabiga ay leeyihiin bulshada ku hadasha ee carbeed baa isla og ereyada af ingiriisiga bulshada muxuu ahaayey ingiriisiga af ingiriisiga ku hadasha ayaa isla og qofka markuu bulshadiisa uu ka dhex barto qofkan kale iskuulka gelaya baranayaana wixii bulshadaasi isla ogeyd buu baranayaa si uu ula qabsado marka waxa weeyaan marka waa convention ama arbitrary waa waxyaabo heshiis lagu yahay la isla og yahay istilaaxi ah nooca marka macnaheedu waxa weeyaan marka qof intuu keligii samaysto wax uu meel dhigan karo maaha waxay u baahan tahay marka ereygu markay qof baa curin kara tusaale ahaan shay cusub erey u bixin kara erey bixin cusub keeni kara laakiin markay dadku la qaataan ayay luqadda ka mid noqonaysaa haddii lala qaadan waayo ay hirgeli weydo uu keligii weligiiba meel ay ugu qoran tahay ma noqonayo ereygaasi erey ka mida luqadda marka taasna waa tilmaan kaleeto oo muhiim ah oo ay luqaddu leedahay dabcan inahan oo dhanba waxay tilmaamaha aynu tilmaannay marka cilmi afeedku uu baadhista ku samaynayo luqadda ama fikradaha luqadda lagaga doodayo qodob ka mida qodobadan ay ka duulayaan mar walbaba waynu arki doonaa ka soco luqaddu kaalin bay leedahay shaqay qabataa shaqada ay noo qabataa waa maxay kaalinta ay inoogu jirtaa waa maxay shay walbaynu adeegsanaa marka waa agab bani aadamku adeegsado kaalin bay ugu jirtaa shaqay u qabataa shaqada ay noo qabato iyo kaalinta ay inoogu jirtaa waa maxay waa qodobka weyn ee muhiimka iyaduna luqaddu ay tahay inaan ku baraarugto ugu horeeya waa communication waxa weeyaan wada xidhiidh in la wada xidhiidho dabcan ereyadu qaar Soomaali baa ku qoran qaarna English marka kii erey bixintii Englishku sideeda ay u ahayd waxaan sidii haddaad turjumto laakiin aan hore erey bixinta loo maqal waa lagu daaliyay waa marka communication waa shaqada ugu weyn ay u qabato waa wada xidhiidh marka la leeyahay waa maxay waxa lagu gudbiyaa xog baa lagu gudbiyaa markaan ku leeyahay cali wuu yimid xog baan kuu sheegaya waa xog cali wuu yimid waxaa kaloo la iskugu gudbiyaa fikradeydaan kuu sheegayaa aniga waxay ila tahay in arrintaas meesha laga daayo marka waa fikradeydii aniga waxay ila tahay fikradeydu baan xog aan meel kale ka keenay maaha waa fikradeydii marka waxaa kaloo ay leedahay hawlaha kale ay qabata waa expression qofku dareenkiisa inuu cabiro waan gaajoonayaa markuu qofku ku leeyahay waan gaajoonayaa dareenkiisii buu cabiray ama ka kaalay gaajoonta waxoogaa yaroo xog ah baa ku jirta qof baa qof caayay ereyga markuu qofka kale caayo yani ereyada uu adeegsaday maxay xogay kuu soo tabinayaan wax xog ay kuu soo tabinayaan ma jirto wax fikraday kuu soo tabinayaan ma jirto waxay kuu soo tabinayaan oo kaliya dareenkiisii inuu kaa xumaayo xanaaqsan yahay ereyadu adeegsanayo kugu caayay waxay doonaan ha noqdaan kulligood waxay ka turjumayaan oo kaliya inuu kuu xanaaqsan yahay dareenkiisu inuu kaa xun yahay marka qofku wuxuu ku tabiyaa mararka qaarkood waxa laga yaabaa qofku inuu dareenkiisa iska ku tabiyo isagoon cid u sheegayn qof meel iska marayo markuu isku buuqo isla hadlayo soo madan ama markuu fikirayo kaliya dareenkiisu waxay la mid tahay sida qofka meel iska marayo fooriyayo kale dareenkiisaas waad faraxsan tahay baad leedahay inuu faraxsan yahay maxaad ku ogaatay dareenkiisa uu iska heesayay marka luqaddu waxyaabaha cabirto dareenkaasna waa lagu nafisaa dadka kaleetana way ogaadaan dareenkaas inay ogaadaanna waxbaa ka dhalanaya waxa kale weeyaan iyaduna waa cognitive
qofka maskaxdiisu waxay ku fikirtaa ereyada qofka fikirkiisa ayay qayb weyn ka tahay luqaddu fikirkiisa waayo marka dib loogu aad ugu fiirsato qofka fikirkiisa iyo ereyadu yaqaanaa qiyaastii way isku jaan go'an yihiin way wada socdaan sidaa darteed qofku markuu uu fikirayo luqadda uu ugu yaqaano wax ku qoraa maadaama iminka adigu af Soomaali ugu taqaano waxay u badan tahay markaad fikirayso in af Soomaali wax ku qorto kadib aad English u tarjumtid ama Carabi ama luqadii kale ee doonaysa laakiin luqadaad ugu taqaano iskuulka markaad ku dhigatay ama jaamacadda aad English ku dhigatayna haddii arrin maadada ku saabsan aad doonayso inaad wax ka qorto luqadii aad ku soo baratay baad ku qortaa sababtoo ah ereyada cilmiga la xiriira ugu badan ee ka taqaanaa waa luqadda aad ku baratay ama English ama Carabiga af Soomaaliga aad ka taqaanay ereyada aad ka taqaanay maadada taabanaya way yaryihiin marka dhinaca marka laga eego fikirka qofku uu fikirayo ereyada uu yaqaano way wada socdaan way wada xiriiraan waayo ugu dambeyn agabka soo xambaaraya fikirkaaga waxay noqonayaan ereyada marka qaybta kaleetana waa qayb fikirka qofka waa cognitive waa qaybta kaleeta waxa weeyaan waa social interaction isla falgalka bulshada waa dhinaca bulshada ijtimaaciga ah luqaddu waxyaabaha inoo qabatay qayb ka tahay inay bulshadu isla falgasho qof baa inoo soo galay wayna salaamay salaamu calaykum buu yidhi ama ma fiican tahay buu ku yidhi markuu ama iska waran buu ku yidhi markuu ku arkay ereyadaasi waxba ma soo tabinayaan wax xog ah kuuma sheegayaan iska waran markuu ku yidhi wuu ku salaamay laakiin su'aal uu ku weydiiyey oo sidii tii imtixaanka aad uga jawaabaysid ma aha tusaale ahaan hadduu madaxu ku xanuunayo markuu ku idhaahdo iska waran ma odhanaysid madaxa ay xanuunaya waxaad odhanaysaa waan fiicana waayo ta hore salaam bay ahayd jawaabteeduna waan fiican bulshada horaa samaysay aad loogama fikiro waxay leedahay qaabab go'an oo lagu soo tabiyey markii la joogo arrimaha xidhiidhka bulshada ku saabsan farxadda hambalyada marka la hambalyeynayo ereyo la adeegsado kooban baa la isugu hambalyeeyaa marka la isku tacsiyeynayo waxaa la iskugu tacsiyadeeyaa ereyo kooban marka la is salaamayo ereyo kooban oo soo jireen ah baa la isku salaamaa luqad walba sidaasay leedahay markaas inagu waxaynu nidhaahnaa iska waran subaxii ma la baryey ama nabad ma lagu soo toosay ummadaha qaarkood waxay isku salaamaan ma soo quraacatay haddaadan soo quraacan odhan maysid maan soo quraacan waxa weeyaan alxamdulilah iyo waxbaad odhanaysaa ma iska waran saaka waan fiicnahay baad odhanaysaa jawaabta salaantaasaas waxaa laga yaabaa inaad aad u xanuunsan tahay laakiin marka salaantu dhammaata qofku hadduu ku waraysto markaasaad u sheegaysaa xaaladaadii qaybtani markaa maaha macnaha qayaxane ma iska waran markuu leedahay macnaheedu inuu adiga xog iska kaa weydiinaya ma aha laakiin waa xidhiirka adiga isaga idin dhexeeya saa darteed qof aad istaqaaneen hadduu ku garab maruu ku salaami waayo maalinta waxaad odhanaysaa kaalay gabadhii hebla ahayd maalin dhaweed garab martay way salaami weyday talow miyaan ka xanaajiyey maxaana dhex maray anigu mabaan ogeyne ama wiilkii hebel ahaa qofka kale ku garab maray waayo wuxuu arrintii xidhiirka ku saabsanayd buu jaray inuu ku salaamo xidhiir bay ahayd wax macnoo kale oo ku jira ma jirin xidhiirkaas ahayd haddii markaa aad uu ku dhaafo waxaad isweydiinaysaa talow maxaa dhacay xidhiirkiini buu dhaawac soo gaadhay marka social interactionku waa muhiim adigoo meel fog jooga dal kale adigoo maraya hadduu qof yidhaahdo waryaa waad soo jeedsanaysaa waayo ma Soomaali baad ahayd markaasaad muxuu ahaa aad qofkii marka halkaa waxa weeyaan waxba wehel baa ku jira dadka meel wada fadhiya qofka aad saf garataan baad markiiba garfad xataa ma aha qofka haddaad kaba soo qaad Addis Ababa aad tagtaan afar qof oo Soomaali hadday meel wada fadhido magaalada ka timid lahjadeedii haddaad ka dareento inuu deegaankaagii lahjadeedii uu ku hadlo isagaad markiiba wax marka luqadda waxay ka tahay social interaction waa qayb kale oo muhiim ah iyaduna qaybta social interactionku way noo iman doontaa projectorku waxba maaha qaybta kaleete meesha ku jirtaa ugu muhiimsan iyadu waxa weeyaan luqaddu tilmaanta shaqada inoo qabata marka loo eego luqaddu way dabooshaa baahida afeed ee bulshadu leedahay bulsho kasta baahi afeed bay leedahay doonayso inay wax isugu tabiso baahida afeed ay leedahay bulshadu luqaddu mar walba way dabooshaa sidaa darteed af ingiriisigu dadka af ingiriisiga ku hadla wuu ku filan yahay af soomaaligu dadka af soomaaliga ku hadla wuu ku filan yahay hargeysa dadka afka ku hadla ereyada hargeysa laga adeegsado way ku filan yihiin
miyiga qofka joogana ereyadiisu way ku filan yihiin sidaa darteed ka xoolo raacatada ah deegaanka xoolo raacatada ah ereyo badan bay u leeyihiin oo ku saabsan xirfadda xoolo dhaqashada ah markay caanaha lisayaan iyo xilliyada la liso iyo caanaha iyo marka la garoorinayo iyo heerarkay soo maraan iyo isbeddelkooda ereyo badan bay u leeyihiin haddaad deegaanka beeraleyda aad tagto ama kalluumaysatada ereyadaa ma yaqaanaan laakiin beerta marka la qodayo ilaa marka la goynayo iyo shaqooyinka la qabto iyo markay korayso mid walbaba heerka ay joogto iyo waxyaabaha la midka ah ereyay u leeyihiin marka baahida luqadeed ee bulshada ku hadasha afkaasi way u buuxisaa luqaddu tilmaamaheeda waa qodob weyn oo kaloo muhiima ma jirto markaa luqad aan baahideeda buuxinin waynu arki doonaa qodobada iyagoo luqadda marka kaloo laga hadlayo qodobada ay tahay inaynu ka xusuusnaano waxaa ka mid ah luqaddu waxay ka mid tahay tiirarka ummadnimadu ummad markaynu nidhaha ummad waayo waxaynu maqlaynaa ummadda soomaaliyeed ummadda carbeed ummadda muslimiinta ah ummadda marka la eego ummadnimadku tiirarka ay ku dhisanto waxaa ka mid a luqadda ummadda carbeed markaynu leenahay tiirka carabnimada isku haya waa luqadda isir ma aha markaynu halkaa haddaynu ka nidhaahno ummadda muslimka ah waxa isku haya waa diinta luqadna ma aha isirna ma aha ummadda soomaaliyeed marka la yidhaahdo iyagana waa lagu hubaa inkastoo intooda badani ay isleeyihiin haddana inaan oday soomaali la yidhaha inaynu ku wada abtirsanin saa darteed kuwa la abtirsadaa jira deegaano kala tegey asalkoogu soomaali ahaa aan iminka soomaali sheeganayn soomaalina inuu asalkoogu soomaali kasoo jeedun bay isku yaqaanaan marka tiirarka ummadnimada mid ka mida weeye waxaa kale iyadana waxyaabaha kale luqadda ay muhiimka ay tahay inaan ku baraarugno waxaa ka mida luqaddu way dhalataa luqaduhu way dhashaan luqad way dhalataa luqaddu way isbedeshaa way dhimataa way dhashaan luqad aan jirin waa la yaqaanaa luqadaha dhowr qarni jiray baa jira oon markii hore jirin luqado iminka jiray baa ka bixi doona dhiman doona luqadduna way isbedeshaa inta ay jirto waa sida noolaha oo kale sida ilmaha yar u dhasho markuu koro qaangaadho weynaado gaboobo dhinto oo kale luqadduna waa saas oo kale waa inaan lagula yaabin ereyo af soomaali ahaa hadday suuqa ka baxaan ha la yaabin ereyo cusub hadday yimaadaan ha la yaabin dabeecadda luqadday ka mid tahay haddii si kasta looga daba qayliyana dabeecadda lagama celin karo dabeecaddaasina tii aynu soo sheegaynay hore dynamiga ah bay qayb ay salka ku haysaa waxaa kale tirada luqadaha lagaga hadlo adduunyada luqado badan baa lagaga hadlaa waxaa lagu qiyaasay 6,000 ilaa 7,000 oo luqadood inay yihiin 6,000 ilaa 7,000 oo luqadood qaarkood waxaa ku hadla dhowr qof oo keliya qaarkoodna waxaa ku hadla 100 milyan oo qof qaarkoodna dhowr qof oo keliya luqad waxaa lagu xisaabiyaa adduunyada markii qof afkiisii hooye ay tahay oo nool uu jiro marka 6,000 ilaa 7,000 oo luqadood dabcan numberkaa waxaa yar sababaya mararka qaarkood luqad iyo lahjad waxaa laga yaabaa in dadka qaarkoodna ay laba luqadood u kala xisaabiyaan dadka qaarkoodna ay u kala xisaabiyaan isku luqad laba lahjadooda hadda ama gelayno laakiin 6,000 ilaa 7,000 oo luqadood dal kasta oo dunida ka mida waxaa lagaga hadlaa ugu yaraan luqad wadamada qaarkoodna dhowr boqol oo luqadood bay lagu hadlaa wadamo 200 oo luqadood ka badan lagaga hadlaa jira wadamo 300 oo luqadood ka badan lagaga hadlaa jira wadamo 400 oo luqadood ka badan lagaga hadlaa jira marka waxaan ka hadlaynaana dadkii afka hooyo luqadda u tahay laakiin wadamada waxaa laga yaabaa masalan innaga marka laga hadla waxaynu af quraynu ku hadalnaa waa af soomaali laakiin Ethiopia haddii la tago ilaa 80 luqadood baa lagaga hadlaa Eritrea haddii la tago dhowr iyo 10 luqadood baa lagaga hadlaa 11 ama 9 ama 11 marba sidii la yiraahdo ayaa lagaga hadlaa Djibouti afka hooyaa dabcan afka kaleete ee isticmaalka sida Englishka kama hadlayo Djibouti haddii laga hadlayo 3 luqadood baa lagaga hadlaa Soomaaliya Canfar iyo Carabi oo afka hooyaa Kenya haddii la tago
waa wax ka badan 40 luqadood baa lagaga hadlaa ummadaha hadla qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhowr boqol oo qof yihiin ama dhowr kun oo qof luqadaha qaarkoodna inay ku hadlayaan baa dhici karta 10 milyan 20 milyan iyo saas oo kale marka luqaduhu wadan walba luqad buu leeyahay wadamada qaarkoodna dhowr boqol oo luqadood bay ku hadlaan waa tii hore aynu sheegnay inuu nidhi waxay dabooshaa baahida mar walbaba baahida luqadaas way dabooshaa aynu ka soconno khariidadaas waxayna tusaysaa luqadaha adduunka u fiirso inta isku midabkii luqad qura maaha waa luqadaha isku bahda ah markaad u fiirsato iminka geeska Africa midabka wada leeyihiin inta isku midabkii waxa weeyaan waa luqadaha kushitiga markaas waxaad arkaysaa ilaa Kenya xagga dambe waxay gaaraysaa ilaa Djibouti iyo Eritrea casaan yar baa dhex gelaya oo Suudaan ah qiyaastii haddana way soo yar noqonaysaa waa luqadaha kushitiga ah casaanka yar orange-ka ah casaanka waxoogaa ah waa luqada carabiga tusaale ahaan marka luqadahaas inta isku bahda ah ma wada aha inay luqad keliya ma wada calaamadin karna qaarkood waxay ku tusinaysaa kala duwanaanshaha luqadaha aynu sii eegno magacyadii luqadaha iminka qaarkood ku qoran yihiin waad arkaysaa magacyadii luqadaha qaarkood baa ku qoran marka waa kan Soomaali Canfar waad aragtaa marka waa kala duwanaanshaha luqadeed meelaha qaarkood waxaan arkaynaa deegaan ballaadhan in luqadu ay ku fidsan tahay meelaha qaarkood waxaan arkaynaa deegaan yar in tiro badan oo luqadii ay ku jiraan oo laga yaabo xataa maabka in lagu muujin kari waayo dhibco ah marka ka soco waa fikradda guud sida luqadaha adduunyadu ay u kala qaybsan yihiin halkaa waxaynu kaga baxaynaa qaybteennii ku saabsanayd luqadda qeexitaankeega tilmaamihii iyo astaamaha ay leedahay tilmaamaha iyo astaamaha ay leedahay waxay saldhig u noqon doonaan cilmi baadhista marka la samaynayo ay saldhig u noqon doonaan waxay saldhig u noqon doonaan bini aadamku wuxuu isku dayaa mar walbaba inuu intervention inuu luqadda saameyn inuu ku yeesho ila macna isagaa lahoo adeegsadaba laakiin kama tallaabsan karo tilmaamaha ay lahayd taamaanka ku sii haya cilmi afeedka ama linguisticska marka la joogo luqadda marka la darsayo laba laamood oo waaweyn baa loo qaybiyaa labada laamood ee waaweyn midna waxa weeyaan waa luqad midna waa suugaan luqadda ayaa waxaa loo qaybiyaa laba laamood oo waaweyn laan waxaa la yidhahdaa luqad laanna waxaa la yidhahdaa suugaanta garanay luqadda caadiga lagu hadlana luqad baa la yidhaahdaa luqadda marka cilmi baadhista lagu sameynayo cilmiga cilmi baadhista ku sameeyaa waxaa la yidhahdaa linguistics marka qaybtii suugaanta cilmi baadhis lagu sameynayana waxaa cilmi baadhista maadada ku sameysa waxaa la yidhahdaa suugaanta marka la baadhayo cilmiga baadha suugaanun baa loo yaqaanaa kadib bay laamo kale uu sii yeelanayaa cilmigaas laakiin luqadda marka la baadhayo cilmi baadhista ah cilmiga baadha linguistics baa la yidhahdaa ama cilmi afeed linguistics af Soomaaliga waxaa ereyada loo adeegsaday ugu macquulsan waa cilmi afeed carabiga waxaa lagu dhahaa cilmi luqa waxaa kaloo lagu dhahaa lisaaniyaad waa isku mid qeexitaankiisa markaynu isku dayno qeexitaanka cilmi afeedka ama linguisticsku muxuu yahay waa ta ugu horeysa weeyaan linguisticsku waa in la baadho si cilmiya in luqadda loo baadho si cilmiya in luqadda loo darso baa lagu qeexay iyadoo kooban si cilmi ah marka su-aasha waxay noqonaysaa si cilmi ama scientific ah maxaa loola jeedaa si cilmi ama scientific waxaa loola jeedaa si mawduuciya shayga ka hadlaya laga hadlayay hanaan la raaco leh tallaabooyin la qaado leh sida cilmi kastoo laamaha kasmada ka midihiba uu u leeyahay oo kaleeta marka waa ka wax weyn kusii dheeraan mayno dabcan intii bani aadamku soo jirayba luqadi way jirtay intii luqadi jirtayna
bani aadamka way ku jirtay arrin ah in luqaddaa dareen cilmiyeed inuu baadho inuu wax ka ogaado inuu wax iska weydiiyo laakiin marba heer bay soo joogtay heerkaas marna wuu koobnaa marna wuu fiday mar walbaba aqoonta iyo laamaheega kala duwan ee bani aadamku way sii korodhaa luqaduna taasun bay ka mid tahay ummadaha ugu qadiimsan ee laga hayo cilmi baadhis xoog leh inay luqadahooda ku sameeyeen waxaa ka mid ah hindidii hore griigii baa ka mid ah soomariyiintii iyo qolooyinkii mesobotaamiyiinta la odhan jiray soomariyiintii baabiliyiintii iyo qolooyinkaas masaaridii hore ayaa ka mid ah dabadeed waxaa soo gelaya xilligii muslimiinta luqadda carabiga luqadahan iminka casriga marka mar walbaba way luqadda way soo jirtay in dadku ay ku sameeyaan cilmi baadhis inay wax iska weydiiyaan laakiin marna way kooban tahay marna way sii qoto dheer tahay wayna sii baahdaan waxyaabaha marka la eego aadanuhu inuu luqadda daneeyo u kuur galo cilmi baadhis ku sameeyo luqadii hore waxaa lafdhabar ka ahaan jiray diimaha hindidu diintooda ay rumaysnaayeen darteed bay luqadooda ugu sameeyeen cilmi baadhis markaasa cilmi baadhisaha ugu qadiimsan ee luqadaha ku saabsan luqad ku saabsan ummadaha ugu faahfaahsan yihiin waa hindida luqadda carabiga carabtu markay ku hadli jirtay xataa ma qornayn laakiin markii diinta islaamku ay timid baa cilmi baadhis xoog leh lagu sameeyey dabcan dadka ku sameeyeyna dad muslimiina baa ka dhexaysay asal ahaan shardi ma ahayn marka naxwaha carabiga laga hadlayo siibaweyhi nin caraba mu ahayn marka marka casriga loo yimaado luqadaha in la derso waxaa sababaha ugu weyn ee loo sameeya waxaa ka mid ah dowladaha ayaa waxay noqotay dadkii baa magaalada soo degay magaalada ku soo batay markaasay dowlad walba waxay yeelatay luqadda rasmiga ee wax ku maamulatay ku wada xidhiidho qoraalkii iyo madbacaddiina wuu ziyaadeen dabcan madbacadda dabadeed qoraalkiina wuu ziyaaday marka taas waxay keentay in ummad walbaba luqadda afkeega hooye ah inay aada u danayso arrintaasi waa wax qarniyadii ugu dambeeyey uuna inta dowladdan casriga ee adduunyada ka jirto unbay jirtaa xilliyadii hore ma jiri jirin marka la eego marka soomaalidu masalan af soomaaliga maxay u daneeyaan cilmi baadhista weyn maxay ugu sameeyaan waa qaybtaa maamulka iyo waxbarashada iyo adeegsigoogaas dadka caadiga markay ku hadlayaan umay baahnayn cilmi baadhis badanba waa qaybtaa marka cilmi afeedku waa in luqaddaa la baadho laamuu leeyahay luqadda marka la baadhayo heerar kala duwan baa laga baadhaa heerarka kala duwan ee la baadho waxa weeyaan aynu si guud aynu u eegno waa phoneticska ama phonology-ga luqadda markaynu hadal ka dhigno hadalka waxaynu loo kala jejebin karaa tudciyo ama paragraphs paragraafka ama tuduca waxaynu usii kala jejebin karnaa weedho ama sentence weedhana waxaynu usii kala jejebin karnaa ereyo ereyadan waxaynu usii kala jejebin karnaa codad dhawaaq ah oo loo yaqaan alifbeetada sidaa darteed markaynu qalin nidhaahno waxaynu usii kala jebin waa erey ama bad markaynu nidhaahno waxaynu usii kala jejebin karnaa ba iyo a iyo da marka ba waa cod ana waa cod da'na waa cod codadkaas ama alifbeetada waa alifbeetada iyo codadku waa isku mid rafli waa isku mid marka la joogo waa waxa ugu horeeya unuga ugu horeeya luqaddu ka soo unkanto ba ma sii kala jejebin karno da'na ma sii kala jejebin karno laakiin bad saddexdaasaynu u kala jebinay si practically marka loo hadlayo bad un baynu aragnaa laakiin inaynu ba iyo a iyo da u kala jejebinay inagun baa maskaxaan u kala jejebinay laakiin ba keligeed nolosha kuma jirto da keligeedna nolosha kuma jirto laakiin waa unug ay luqadda u adeegsato si ay ereyo u samayso waxaa ka mid a masalan xabadda buluketiga ama jaajuurkii nolosha intifaac kale kuma leh laakiin waxbaa lagu dhistaa dhismahay kaalin ka qaadataa laakiin keligeed intifaac gaara inooma laha sidaasoo kale ba'du ayna keligeed intifaac gaara u lahayn laakiin luqaddu waxay u adeegsataa codadka intay isku dardarto inay ereyo ka dhigto marka ta ugu horeysa waa ereyadaa marka la eego aadanuhu codadka uu ku hadlo luqadaha bani aadamka marka la isku daro waa 100 iyo waxoogaa cod weeyaan
waxay iskugu jiraan shaqal iyo shibane ama shibane iyo shaqal mar kasta shibanaha badan boqol iyo waxoogaagaas qolo caalami oo IPA la yidhaha baa jirta International Phonetic Association oo codadka adduunyadii waxaa ka shaqaysa waxay diraasadoodii 2005 waxay ku soo saareen 107 cod inay yihiin way dhici kartaa marka luqado cusub la baaro in codad ay ku soo biiraan mid ama laba 107 boqol iyo waxoogaa luqad walba adduunyada ka midii boqol iyo waxoogaaga boqol iyo dhowrka cod ayaa waxay ka xulataa codad 20 ilaa 40 cod u dhaxeeya 20 ilaa 40 cod baa waxay noqdaan alifbeetada luqada af Soomaaligu 20 ilaa 40 cod buu haystaa uu boqol iyo waxoogaaga ka xushay Ingiriisiguna intaas buu ka xushay Carabiguna intaas uu ka xushay marka waa laakiin adduunyada oo dhan marka la isku daro luqad kasta boqol iyo waxoogaaga kama dhex baxsana taasi waa mid waa codadkii ba iyo a iyo da alifbeetada waxa kaloo jira codad kale oo aan ahayn marka luqadda cilmiga la joogo waxa lagu yiraahdaa phoneme boqol iyo intaas waa phoneme luqad walbaba 20 ilaa 40 phoneme bay phonemku waa waxa hadhow alifbeetada loo bixin doono marka phonemkaasi ayay luqad walba ka xulataa waxa kaloo jira phonemkaasi aynu qornay alifbeetada ah mid aan ahayn laakiin luqaddu ay adeegsato oo loo yaqaano phonemka darajada labaad haddii kan hore darajada koowaad loo bixiyey kan hore waxaa la yidhaha segmental phonemes kan kalena waxaa la yidhaha suprasegmental phonemes ama phonemaad tarkiibiya iyo phonemaad fooqa tarkiibiya masalan waxaynu nidhi inan iyo inan marka inan iyo inan labaduba waxay ka kooban yihiin na a na soo maaha kuwaasi waa phonemyadii caadiga ahaa aynu ku magacoonay darajada koowaad laakiin mid kaloo waxaa jira darajada labaad oo macnahooda kala duway inan iyo inan codku stress baa la dhaha stresskaasi meesha uu fuulay stresskaasi marka waa mid kale waxaa la mid ah tusaale ahaan waxaynu usoo qaadan karnaa markaynu dhawaaqa culus shaqalka culus waxaynu nidhi maro cad maro cad soo cad maaha iyo waxaan ku idhi cad hiliba cad marka caddaanka ahaa iyo cad labada a ee ku jira midna way fudud tahay midna way culus tahay a'da waxaan kor saarnay dhawaaq kaloo culus dhawaaqa kale culus waa mid kaloo dheeraad ah marka waxaa la mid ah af Soomaaliga marka kaalin buu ku leeyahay marka wuxuu kala saaraa kelida iyo wadarta awr iyo awr wuxuu kala saaraa lab iyo dhadiga inan iyo inan wuxuu kala saaraa dhowr arrimooda noocaas oo kaleetuu qabtaa ayuu qabtaa dabcan waxaa kaloo ka mid ah waxaan loo yaqaan toonka ama intonationka luuqda cali baa waxaan soo qaadan karnaa cali baa libaax dilay cali baa libaax dilay soo laba weedhood oo kala duwan maaha labada weedhood maxaa kala duway ereyadu waa isku mid habkay u taxan yihiinna waa isku mid laakiin habka luuqda sida heesaha codka loogu sameeyo oo kaleeto labada luuqood baa kala duwan luuqdaasina marka iyaduna waa suprasegmental phoneme waa phoneme kale phonemyada noocaas ah ee labaad waa dhowr iyo 10 luqadahoo dhan luqad walba dhowr bay ka luqadaha qaarkood luqad walba maaha dhowr bay ka xushaa luqadaha qaarkood aad bay u adeegsadaan luqadaha qaarkoodna aayar bay u adeegsadaan in yar sida af Soomaaliga oo kale luqadaha Eeshiyaanka shishe indha yarta ay ku hadlaan intooda badanina si xoog leh u adeegsadaan luuqdaas marka cilmiga waxaa darsa waxaa loo yaqaanaa phonetics ama phonology waxay kala yihiin codadka sida loogu dhawaaqo cilmiga darsana waxaa la dhahaa phonetics ba sidee loogu dhawaaqay laakiin codadka kaalinta kule luqadda cilmiga darsana waxaa la dhahaa phonology saa darteed luqaduhu markay laga hadlayo isku mid kuma aha phonology-ga iyo phoneticska tusaale ahaan bad markaynu bad tahay haddii ba'da aynu da ku bedelno aynu dad nidhaahno ba iyo da in la isku bedelay macnihii bay bedeshay soo maaha maadaamay macnaha bedeshay waxaynu leenahay ba iyo da waa phoneme laakiin markaan idhaahdo subax waxaan ku dhawaaqay sa ama aan ku idhaahdo subax oon ku dhawaaqo sa
ama aan ku dhahdo subax oon ku dhawaaqo za macnuhu miyuu isbedelay ismuu bedelin ama lahjad bay ka turjumaysaa deegaanada qaarkood Soomaalida dad waxaa ku jira subax ugu dhawaaqa dadka badankooduna subax oo sa ah bay ugu dhawaaqaan ama waxay ka turjumaysaa qofku inuu yar carab la'yahay laakiin marna erey seko haddaan idhaa iyo zeko haddaan idhaahno macnuhu isma bedelay marka waxaynu odhanaynaa af Soomaaliga marka la joogo foneemka waa sa laakiin sa iyo za iyo sa foneem ma aha waa faracyo foneemkiisa ka farcamay luqadda waxaa lagu dhahaa markaa allophone doodaha jira qaarkood waxay ka dhashaan dadku waxayna kala ogeyn inuu foneem iyo allophone jiro laakiin carabiga marka loo yimaado sa iyo tha iyo sa iyo za waa 4 foneem oo kala duwan laakiin marka Soomaaliga la joogo waxa weyn waa hal foneem oo sa la yiraahdo saddexdan kalena isagay ka farcameenay harkiisi yihiin waa adigoo lagu sawiray oo sawirkaagii oo kale u yeebis marka cilmiga dhawaaqa ka turjumayana phonetics baa la yiraahdaa markii dhawaaqaas uu luqad gaar ah galu kaalin ka qaato cilmiga baadhana phonology baa la yiraahdaa waa isku mid laakiin midina wuxuu ka turjumayaa phoneticsku markii physicska digan jirteen secondary-ga sound cod lama dhigto codka la dhiganaya waa maxay waa codka marka dhawaaqa soo codka u sameysma codku soo u socdaa iyo waxa marka cilmiga labaad ee kale luqadda marka cilmiga koowaad waa cilmiga phonetics iyo phonology-ga la yiraahdo cilmul aswaat af Soomaaliga waxa kale oo lagu codaynta iyo xaaji raabi oo af yaqaanada Soomaalida dadka ugu qadiimsan kamid ah wuxuu ku macneeyay ereyga codayn saadirteed wuxuu leeyahay buugga la yiraahdo buugga codaynta oo maktabadaha yaalaba waa phonetics cilmiga labaad waxa weeyaan morphology ninkana waqtigii baa socda leh morphology-gu wuxuu ka hadlayaa ereyga dhismihiisa ayuu ka hadlayaa ereyga dhismihiisu waa sidee luqaddu waxay ka kooban tahay ereyadaasayna dhistaa ereyada marka la dhisayo waa inay macno xambaaraan markaas waxaan arkaynaa ereyga kab kab waa erey soo ma waxaan doonaa inaan jamc ka dhigno waxaan oranaynaa kabo waxaan ku darnay oo marka morphology-gu sideebaa magaca kelida ah wadar looga dhigaa isaga inoo sheega magac sidee fal looga dhigaa falka sidee magac looga dhigaa falku sideebuu waqtiyada kala duwan u xambaaraa waxyaabaha noocaas oo dhan arrinta ku saabsan cilmiga qabta morphology baa la yidhaahdaa waa heer kale waa ereygu intuuna meel gelin si uu ugu habboonaado ayaa loo dhisaa sida gidaarada marka dhagaxa laga dhisayo kale jaajuurka maaha dhagaxa waa la qoraa si meesha la doonayo ugu habboonaado luqaduna ereyadan qofka luqadan adeegsanaya ereyadii ayuu wuxuu u qaabeeyaa weedha uu abuuri doono si ugu habboonaado marka kab hadday keli ahayd wadartii markii la doonayo waxay noqonaysaa kabo ama mararka qaarkood nalal hadday tilmaan tahayna waxaa laga yaabaa si kale inaan gaaban waa tilmaan haddaynu wadar ka dhigayno gaagaaban waynu ka hormarinay ma aragtaa dhaadheer waynu ka hormarinay ama mararka qaarkood in laga dhigayo magac baa dhici karta magacii fal laga dhigayo ul markaas waxaad maqlaysaa iyadoo la leeyahay ule ama kabee yani magac baa laga dhigay ama falkii baa magac laga dhigi doonaa ama falka laftiisii baa wuxuu waqti qaadanayaa maray marka mar waa fal ay baynu ku darnay oo ina tusinaysa waqtiga tegey markaasaa waxaynu ka dhigi karnaa haddana gabadh markaynu doonayno martay aydii waxaynu kusii darnay ta ina tusinaysa ta'da dhadigood ama marnay na'daasina waxayna tusinaysaa wadar dadka hadlaya ah ayduna waxayna tusinaysaa waqti waxaa laga yaabaa inaynu dhanaa maraa aadaas dambaynu raacnay mar bay ahayd mugtay aadaa dambaynu ku darnay wax kalayna tusinaysaa ama mari baynu raacinaynaa infinitive maxadane markaa wax kala raaci doona mari doonaa mari daas infinitive baa la yidhaahdaa ama maxadane mari doonaa kelima mari jiray
iyadu markaa waqti inama tusayso waxay keenaysaa inuu falgargaare ama auxiliary verb inuu qaato waxyaaba noocaas marka cilmiga noocaa waxaa ka shaqaynaya waxaa la yidhahdaa morphology ama sarfi xaajiraabi isagu wuxuu ku magacaabay ereyeyn ayuu ku magacaabay cilmiga kale saddexaad waxa weeyaan syntaxka ama naxwaha waa marka luqaddu marka weerar ay dhisayso xeerar bay leedahay loo taxo ereyada xeerarkaa loo taxaa waa sidee waxaa ka hadla naxwaha syntax baana la yidhaahdaa ku dheeraan mayno xaajiraabi wuxuu ku magacaabay weedhayn marka wuxuu leeyahay buug la yidhahdo codayn waxaa kaluu leeyahay buug la yidhahdo ereyeyn waxaa kaluu leeyahay buug la yidhahdo codayn intaba maktabadaha way yaalaan waa qofka keliya cilmiyadaa af soomaali ka dhigay si cilmiya uga hadlay dabcan weliba xilli horuu qoray cilmiga kale afraad waa semanticska cilmiga loo yaqaano cilmigan semanticska wuxuu ka hadlaa macnaha waxaynu nidhi luqadda shaqada koowaad asaasigana ah ay noo qabataa waa inay wax gudbiso inoo tabiso wax inoo qaado soo maaha markan ay macnaha qaadayso ay xogta qaadayso ay fikradda qaadayso ay dareenka qaadayso agabka ay adeegsataa waa ereyo la isku xidhxidhay sida gaadhiga alaabta bakhaarka laga soo saarayo loogu raro uu meel kale u geeyo ayaa maskaxda qofkani wuxuu ku sameeyaa wixii xog iyo afkaar uu doonayay buu ereyo ku soo raraa dabadeed markaasuu hawada soo mariyaa dhegtaadu ay maqashaa markaasay furfurtaa ay xogtii kala baxdaa marka macnahaas luqaddu siday u xambaartana cilmigaa semanticska ayaa ka hadlaya oo sheegaya oo sheega ereyadaa xambaara mararka qaarkood waxaa laga yaabaa miis ereyga qalin ereygaa macnaha inoo xambaaray mararka qaarkood macnaha wuxuu noqon karaa macno aan erey buuxa ahayn oo kii sarfigii hore tusaale ahaan kab waa magac soo maaha laakiin kabo o'daasi waa maxay waa wadar laakiin wadarnimadkeedu goormuu soo baxaa markay kab raacday nalal ashaasi goormay wadar noqotay markay meesha kale raacday ayay noqotay maray aydaasi waxay tagto ka dhigtaa markay fal raacdo marka ereyada qaarkoodna macnahoogu iskood buu u taagan yahay qaarkoodna macnahoogu wuxuu soo baxaa marka ay erey iskii u taagnaa fuulaan kuwa hore marka macnahoogu wuu buuxaa waxaa la idhaha morpheme xor ah kuwan kale marka mid kale la kor saaro macnahoogu soo baxo iyagu keligood markay joogaan aan macnaha lahayn o'da haddii la raaco muxuu ahaaye macnayaal kala duwan bay qaadanaysaa laakiin marka magaca lagu kabo unbay wadar ka dhigtaa magacyada gaarka ee halka allan ka kooban sida kabo oo kale tusaale marka kuwaasna waxaa la yidhahdaa morpheme aan xor ahayn oo sidkan morpheme aan xor ahayn oo sidkan marka waxyaaba marka ereyadaa xambaara macnahaas buuxa ama macnaha grammatical meaning macna naxweedka loo yaqaano sida wadarta waqtiga labka dhediga waxyaabahaas macna naxweed baa la yidhahdaa waxaa kaloo mararka qaarkood macnaha xambaara laba erey oo la isku daray markaynu idhaahno suuq madow wuxuu inoo sheegayaa macno aan ahayn macnaha labada erey ina tusayaan suuq rinji madow la mariyey ma aha suuq meeq madow lagaga ganacsadana ma aha suuq madow waa macno kaloo tarabaan ayayna tusinaysaa labada erey marka la haddaad kala jarto macnahaas wuu lumay waxaa la mid a haddaynu nidhaahno aqalka cad ee maraykanka looga arrimiyo aqalka cad daar gaar ah buu tilmaamaya mararka qaarkood ereyadu way ka badnaan karaan markaynu waxay noqon kartaa odhaah aan wax saliid iyo biyuhu isku daray saliid iyo biyo lagama sheekaynayo odhaahdaa wada jirtee saliid iyo biyuhu isku daray wax kaley sheegaysaa mararka qaarkood waxaa laga yaabaa weedha oo dhammaystirani inay macno qaado iyadoon erey ka mida uuna sheegayn tusaale fiican waxa inoo ah gabaygii xiinfiniin waxaa ku jira beyda waa xiinfiniin neefka aada xadhigga haysaaye waa beydka la odhan karo gabaygaa isagaa ugu qiimaha badan ammaan aan xad lahayn buu faraska hubiyey soo maaha ereyada ku jira erey ammaan inuu tusaya ma ka mid yahay may ka mid ma aha ereyadu dhammaantood waa caadi hal erey qura ammaan sheegaya kuma jiro laakiin habka ereyadaa loo taxay ayaa macnaha ammaanta ah keenay marka halkaa habkaa marka la gaadho waxay gaadhi doontaa waa meelaha suugaantu ay uga faa'iidaysato qurxinta
erey macnihii xambaarsan marka luqaddu macnihii sidee bay ku xambaartay isagoo erey qura ah sida miis isagoo laba erey ah sida suuq madow isagoo qoraa isku xidhan ah saliid iyo biyuhu isku daray isagoo weer dhammaystiran ah erey ku tusinayaana uusan jirin sida waa xiinfinin neefka aad xadhigga haysahay cilmiga arrintaa baadha waxaa la idhaha semantics ama cilmu dalaala ama cilmiga macnaha soomaaliga qof cid gaar u sheegtay maarag nooca kaloo saddexaad nooc cilmiga kale ee shanaad waa pragmatics wuu cusub yahay beryahan dambaa lagu soo daray semanticsku ka farcamay halkii semanticsku uu macnaha uu baadhayay kan waa markuu macnuhu adeegsi galo pragmaticsku wax weyn maaha waa markuu adeegsi galo oo tusaale ahaan waxaynu leenahay gudcur iyo madow gudcur iyo madow waa isku mid soo maaha laakiin waxaynu odhanaynaa caawa waa gudcur maradu way madowda laakiin maradu waa gudcur ma odhanayno haddana gudcur iyo madow markaynu qaamuuska joognay labada erey keligood ay joogeenayna hadalka ku jirin isku macnay ahaayeen laakiin markay adeegsiga galeen midba meel buu ku habboon yahay ka kale aad diideyso marka waa adeegsiga usage adeegsigaas cilmiga arrintaa derse pragmatics baa la dhaha markaa u fiirso codka luqadda markaynu ka hadlayno laba cilmi phonetics iyo phonology aynu inta badan la israaciyo phonetics la isku yidhaahdo luqadda dhismaheedii marka laga hadlayo morphology iyo syntaxka ka hadla waa xeerarka naxwaha oo la isku daray markii macnaha laga hadlayana semantics iyo pragmatics waa weeyaan marka waa shanta ama lixda afar baa asaasiya phonetics morphology syntax iyo semantics phonology sida badan phoneticska way aad uma ballaadhna macnihiisu oo isku sidkan yihiin haddii aynu ka dhigno khariidad saasay noqonayaan intaynu soo aragnay iyadoo unugii laga soo bilaabay dabadeed kor loo sii kacay oo sii ballaadhanayaan mid walbana phoneticskii mid walbana shaqadii uu sheegayay aynu sheegnay intaynu soo sheegnay aad qorateen ee sharaxaysay mooyaan wax weyn oo kale maaha wax weyn oo kale maaha waaya aynu ka baxno halkaa marka waxaynu kaga baxaynaa qaybteennii ahayd cilmi afeedka cilmi afeedku waa luqadii buu baadhayaa laba qaybood oo kale culumtaa ka baxsan baa jira oo aanan iminka halkan ku sheegin iyo kaadi aanan halkan ku sheegin labada qaybood waxa weyn marka cilmi afeedku uu culumta kale uu wax ku darsanayo uu yani bulshada ayaa asal u ahayd bulshada waxyaabaha kale ay khuseeyaan marmar ay cilmi afeedka ay yeelanayaan laba meelood ay iska gooyaan sida laba wado isu gooyaan oo kale marka cilmiga bulshada iyo cilmi afeedka markaasaa waxaa ka soo baxaya waxa la yidhaahdo kana waxaa cilmi luqa kana cilmu lijtimaac markaasa waxaa ka cilmi luqa alijtimaaci ama sociolinguistics waxaa ka soo baxaya cilmi luqa nafsi qofka cilmi nafsiga ama psychologyga iyo linguisticska markaasaa psycholinguistics cilmi kale ka soo baxaya marka labadaas cilmina waxaa la raaciyaa kuwan kale waa cilmiyada ugu waaweyn waayo mid wuxuu baadhaa qofka markuu keligiis luqadda iyo waxyaabaha la xidhiidha iyo bulshada markay luqaddu ay ku dhex jirto bulshada midkan labadaasna waxay raacayaan kuwan halkaa marka waxaynu kaga baxaynaa culumtii luqadda si guud marka waxaynu u iftiiminay luqad iyo waxay tahay iyo astaamaha ay leedahay waxaa kaloon isku daynay inaan iftiimino iyadana cilmi afeedka iyo waxa uu yahay iyo laamihiisa iyo heerarka kala duwan lakabidada kala sarreeya ee luqadda marka la baadhayo ama la diraasaynayo lagu sameeyo intaas waxaan isleeyahay waa inta caawi nagu filan waqtiga intiisa kale waxaan siin lahaa wixii faallo iyo su-aal ah qaybaha kalena habeenada kale aynu arki doonaa aad iyo aad baad mahadsantihiin waay bismi illahi raxmaan raxiim waa aad baad mahadsantihiin faallada iyo su-aalaha labadaba waxaan isku dayey inaan qortaan isku dayey khadiirtiisa koowaad afsuuqiga luqadda marka laga hadlayo luqaduhu heerar bay leeyihiin heerarkaas luqaddu uma dhalanin sociolinguisticska qayb kalena waa midii uu tilmaamay samatar cilmi uu meelahaas uu sheegayna waxbay la soo geli doontaa yacni bani aadamku markuu bulshadu markay luqadda adeegsanayso waxay u adeegsataa heerar kala duwan heerarkay u adeegsato marka waxaa ka mid a suuqi luqad suuqinimo u dhalatay ma jirto laakiin dadkaa u adeegsaday waxaa kaloo jirta luqad rasmi ah
loo bixiyo xafiisyadii maamulka lagu adeegsado mid u dhalatay ma jirto dadka u adeegsaday luqadda bulshadu nolol maalmeedkooga ay ku wada xidhiidhaan yaa jirta luqadda rasmiga iyo midaan rasmiga ahayn baa jirta waxaa jira da'aadda kala duwani luqadaha sibay dhalinyaradu ciyaalku ereyo u gaar ay adeegsadaan baa jira dhalinyaradu ereyaa ku yar badan waxaa kaloo la mid ah xirfadaha geerishka qolooyinka le biraha ka shaqeeya ereyo iyo adeegsadaan suuqleydu waxyaabay adeegsataa marka heerarka kala duwan ee bulshadu yani heerarka kala duwan ee bulshadu ay tahay ama da' ha loo eego ama kala duwanaanshaha nooca kale ha loo eege ayaa waxaa ka dhasha adeegsi kala duwan oo kale ah suuqigu marka noocaasu ka mid yahay waxyaabahaasi marka koox gaar ahi luqad lahjad ama lahjadna ma ahe adigu luqadda gaarka ah ay leedahay kooxdaas koox da'aad ha noqoto ama koox kale ha noqoto xirfadeed luqadda gaarka ay leedahay waxaa laga yaabaa iyagu inay curiyaan muddo kadib luqaddaasi labun bay ku dambaysaa inay dhimato way dhici kartaa ama ina iyaga soo dhaafin oo heerkoogii ay joogto waxaa kaloo laga yaabaa inay dhaafto ay luqaddii weyneed kusoo biirto marka luqaduhu ilaha ay ka kobcaan ay ka yimaadaan waxaa ka mid a suuqiga waxaa ka mid a heerarkaa kala duwan wuxuu ka mid yahay waxaa laga yaabaa boqolaal erey baa ay abuuraan dhalinyarada ciyaalka dumarka xirfadleyda laakiin tiro ereyo kooban ayaa waxay u soo dallacaan inay luqaddii aan ku magacaabi karno luqadda dhexe ama luqadda guud inay kusoo biiraan marka heerkaasi mar walba wuu jirayaa iminka markaynu intan wada fadhino luqad baynu ku wada hadlaynaa laakiin laba qof oo keliya haddaad noqotaan waxoogaa adigoon ka fikirin ayaad heerkii yar kasoo yar degaysaa heer waxaad yar furfurnaansho yar dheeraada ayaad iska qaadanaysaa marka luqadaha noocaasi ceebna ma aha dhaliilna ma aha waxa weeyaan sida ilaha kala duwan iyo faraha yaryar ay toga weyn ama webiga u abuuraan ayay lahjadaha deegaanada kala duwana ama bulshada qaybaheeda kala duwani variationska ay leeyihiin ay u yihiin ilo quudiya luqadda guud ee ummaddu ay leedahay marka ceeb ma aha laakiin waa in adeegsigu uu heerkeedii u joogaa tusaale ahaan labada inan ee isku daadiyihii ereyo iskula hadlaan laakiin inanka 10 jirka ama 15 jirka iyo odayga 40 jirka ereyo iskula hadlaan kale ereyo uu ilaalinayaa jira aabihii waalidka ah ereyo kula hadlaa macalinka ereyo marka ilaalinta ereyadaasi waxay ku ta ku habboon inanka kula daada waxaa laga yaabaa inaad waryaa aad tidhaahdo waa caadi ceebna maaha xumaanna maaha laakiin oday 30 sano kaa weyn waryaa markaad tidhaahdo ixtiraam daraa soo gelaysa marka ereyga waryaa ma xumayn mana fiicnayn laakiin meesha aad ku adeegsatay baa marna xumeeyey marna fiicneeyey ayaa fiicneeyey waxaad ku arkaysaa laba gabdhood markay wada hadlayaan inay midda kale naaya ku tidhaahdo laakiin inan intuu la hadlo inuu ku yidhaahdo gabadh naaya deegaanada qaarkood aad bay waxay uga tahay waxaa laga yaabaa inay kab ula baxday la dirto deegaanada qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay yar dhibsato ayaa laga yaabaa marka waxay ku xidhan tahay marka waxyaabaha noocaasi adigu ereyga heerkii ku habboonaa ma ereygu sidiisuu yahay heerna waa loo adeegsadaa laakiin kii ku habboonaa ma u adeegsatay xumaan ma aha samaanna ma aha marka taa waa midda middan ku saabsan maxamed muuse doodan ah ma dhici kartaa inaynaan maqlayn iyadoo loo eegayo frequency-ga ama inta decibel uu yahay codku maqlidii inuu ka sarreeyo inuu ka hooseeyo dabcan cilmi baadhista la sameeyey maya sidaa ma aha waxa weyn cilmi baadhista la sameeyey dhawaaqyada ay bixiyaan iminka bani aadamku wuxuu aad u helay moogtahay inuu qalabkiisu waxyaabo decibelkooda oo aad u hooseeyo la maqli ayna dhegtayna caadigu maqlayna inuu qalab ku qabto jabaq aad u hooseysa inuu qalab ku qabto jabaq aad u weyn oo dhegtayna ayna xamili karinna inuu qabto labadaba ayuu awood u yeeshay qalabku markii qalabkaa la adeegsaday fariimaha si ugu tugay cilmi baadhisaha lagu sameeyey waxay muujinayaan dhawaaqyada codadka yani haddaynu si majaas ahaan ah aynu luqad ugu magacaawno dhawaaqyo way adeegsadaan laakiin waa dhawaaqyo kooban laakiin marka ay fariimaha isu tabinayaan bani aadamku wuxuu isku tabin karaa xog isagoon dhaqdhaqaaq samaynin ayuu xog isugu tabinaya xogtaan isugu tabinaynaa xog bay noqon kartaa
fikraday noqon kartaa waxay noqon kartaa dareen iyo waxyaabaha la midka waxaa kaloo noqon kartaa waxa maanta socda inaynu ka hadalno waxaa laga yaabaa inaan kuu sheego kumanaan sano ka hor wixii dhacay inaan kula wadaago waxaa laga yaabaa inaan ka doodno waxa mustaqbalkana ah marka waqtina inama xidhayo goobna inama xidhayso laakiin xayawaanada ama noolaha lagu sameeyey cilmi baadhista waxaa ka mida shinnida ayaa ka mida dabcan kuwa ugu ahayd uguna la arkay inay noolayaasha kale marka la eego ay ugu horumarsan tahay waxaa muuqatay fariimaha isku tabinayaan dhawaaqyana way adeegsadaan hormoonno jirkoogu soo daayana way adeegsadaan dhaqdhaqaaq jirkoogu uu samaynayana way adeegsadaan laakiin intaasoo dhan haddana markay isku daraan xogta ay isku tabin karaan way ka kooban tahay xuduud bay leedahay ayna dhaafi karin xuduud bay leedahay ayna marna dhaafi karin oo tusaalehaan shinnidu waxaynu nidhi waxay u tilmaamaysaa malab geed ku yaalla gabiley markaasay ka doonaysaa ubixii ay ka soo goynaysaa laakiin wax mitir ka sarreeya ama mitir ka hooseeya uma sheegi karto isuma sheegi karaan markii la darsay yani say doonaan ha isugu sheegaan laakiin fariin ah waxaa khatartaa ka hooseysa mitir hoostiisa ah uma gudbin karto uma sheegi karto marka waxay u egtahay ilaa iminka inta aadanuhu og yahay inayna ahayn maqlid iyo maqlid la'aan laakiin in ayna waxyaabaha ay adeegsadaan ama dhawaaq ha noqoto ama dhaqdhaqaaq ha noqoto ama hormoonno jirka uu soo daayay ha noqoto inayna fariimaha ay isku tabinayaan inay aada u kooban tahay marka la barbar dhigo tan aadanaha waa laga yaabaa markii awoodda cilmiyeed ee aadanuhu ay sii korodho waxyaabo faahfaahin badan aan imika loo hayn in laga sii ogaado laakiin uma badna in wax weyn oo ka baxsan ay kasoo dhex baxaan xagga su-aasha sakariye horta linguisticska marka laga hadlayo macnihiisu maaha in luqado badan aad barato linguisticska waa cilmi science luqadda waa science-ka afkaaga hooyo keliya adoo yaqaanoon afaf kale aqoonin ayaad linguist noqon kartaa marka iskuma xidho xagga laakiin tan ah luqado kale barashadooda laba arrimoodoo waaweyn baa la tilmaamaa mid horta waa karti aadanaha ilaahay uu siiyey luqad wuu baran karaa waxaa la rumaysan yahay cilmi baadhisaha la sameeyena ay si bilow ah u tilmaamayaan arrintaasi markastoo qofka da'diisu ay korodho kartidiisa barashada luqaddu inay isdhimayso kartidiisa barashadu 10 jirka iyo 50 jirku isku si luqadda kartidooda barashada luqadda kale inay isdhimayso ilmo yaro meel dhex tegay waxaa laga yaabaa muddo kooban buu ku baranayaa laakiin markuu qofku weynaado waxaas marka taas waa mid kartidaas way jirtaa waxaa kaloo jirta hibo iyo karti ay dadku ku kala duwan yihiin saa darteed dad baa jirta ay u sahlan tahay cid walba luqad kale way baran kartaa intay doontaha ku qaadatee laakiin haddana dad waxaa jirta ay u sahlan tahay inay luqadaha si sahla u bartaan ay dadka kale uga dheereeyaan dadka kaleba orodka ka dheereeya soo ma jiraan dadka kaleba ka muruq weyn soo ma jiraan haddana waa la tarmin karaa marka calaa kulli xaal marka luqadda waad baran kartaa hibada dadku ay ilaahay u kala siiyeyna dad ay aad ugu fududahay baa jirta oo la arko iyagoo tobaneeye ama ka badan luqadood si sahal ah ku barta muddo kooban halka qofkan kaleetana muddo dheer uu ku baranayo luqadii taasna waa midda luqadda iyo bulshada uu samatar tilmaamay waa qodob weyn oo aad u ballaadhan oo sociolinguisticska marka laga hadlayo qodobo ama fadhiga labaad ama fadhiga saddexaad midkood aynu kusoo qaadan doonana way soo geli doontaaye luqadda markii laga hadlayo mabda guud baa jira luqaduhu ma kala hormarsana luqadu waa isku mid waxaa loo jeedaa luqadda luqad walbaba waxay ku filan tahay baahida dadka ku hadlaa ay qabaan dadka ku hadlaa baahidoodu hadday korodho luqaddu way la korodhaa habkooda fikirku hadduu kordho luqaddu way la korodhaa habkooda fikirku hadduu isdhimo luqaddu way isdhintaa marka luqaddu waa dynamic ku filan sida hawadu weelka muxuu ahaaye qaabkiisa ay u yeelato mar walbana weelku u buuxo una marna aynan badhnaanaynin qaanuunka luqaddu ma ogola baahida bulshada luqadda ku hadashaa inay marna ka yaraato automatically markiiba awoodda u leedahay ay ku buuxiso marka arrintu kuma xidhna luqadda kuma xidhna waxay ku xidhan tahay dadka haddaad u fiirsato soomaalidu af soomaaliga mudday ku hadlayeen
markay soo islaameen mafaahiimtii diinta la xidhiidhay markiiba ereyaynu u yeelanay ama carabi ha laga keeno ama ereyo soomaali hore u jiray ha lagu buuxiyo markii af soomaaliga laga dhigay luqad maamul markiiba ereyaynu u yeelanay ereyadaasi dadkii waaweynaaye xilligaa jiray macnaha umay aqoonin markii afka waxbarashada laga dhigay ee la yidhi science iyo xisaab ha lagu dhigto markiiba ereyo ku habboon baa loo helay marka baahida bani aadamku baahida isaga baahida yani baahida uu qabo ee la socota agab cusub hadduu yimaadana ereyo ku habboon baa loo helayaa laakiin habka fikirka bani aadamku wuu koraa habka fikirkiisu hadduu koro luqadiisuna way la koraysaa ereyo u xambaara fikirkaa cusub iyo conceptskaas cusub ee kusoo biiray ayaa markiiba imanaya markaas waxaan arkaynaa dayax gacmeed markiiba iyadoo la leeyahay ama waxyaaba hanti wadaag iyo hanti goosi fikrado la xidhiidha iyadoo la sheegayo waxyaabahaas oo dhan waa markii fikradaas marka la joogo lixdamaadkii ka hor kumaba jirinba dayax gacmeedku goormu adduunyada kusoo biiray raadiyo waa saas oo kaleeto marka dhammaan saacad marka waxyaabahaasoo idil waxay la socdaan marka luqaddu baahida dadka ku hadlaa ay qabaan way buuxisaa waxaa la yidhaahdaa masalan eskimoska qolada la yidhaahda ee ku nool cidhifka waqooyi ee dunida dhul barafay ku nool yihiin luqadahooga ereyada barafka ay u adeegsadaan waa 50 ilaa 100 erey oo kala duwan 50 ilaa 100kaa erey ee kala duwan waa noocyada kala duwan ee barafkay sheegayaan laakiin luqadaha eskimoska waa dhowr luqadood ee qaarkood in ereyga geed laga waayaa dhici karta ereyga geed laakiin baahida barafay qabeen innaga soomaalidana luqadeenna asalka ah kuma jirinba ereyga baraf waa erey urdi ah oo ina soo gaadhay qarnigii 20aad waa erey urduu ah qarnigii 20aad buuna ina soo gaadhay ka hor baraf nooguma jirin waa nolosheenna baraf laguma arko waa inay talaagada ay timaado si baraf loo arko xataa roobka baraf baa da-ay lama odhan jirin dhagaxyaalaa da-ay baa la yidhahdaa baraf lama odhan jirin ilaa iminkana lama yidhaahdo dhagaxyaalu ahaa marka ereygan baraf markii talaagad baraf samaynaysa la arkay erey waa loo helay meel kaleba ha laga soo amaahde khalaas laakiin eskimosku way u baahnaayeen luqadooda marka waxaa laga helaa min 50 ilaa 100 qaarkood 50 60 70 erey kala duwan noocyada barafka ah sida dhirta iyo waa in aynu marka halkaa waxaa ku jirta waxaan uga jeedaa luqaddu baahida dadka ku hadla jamaacada ku hadasha iskale way buuxisaa marka habka fikirka iyo heerka fikirka ee dadkaasi uu kordhana agabka cusub hadduu noloshooda ku soo biirana intaba luqaddu way korodhaa waxaa la mid ah agab la adeegsan jiray hadduu ka baxo ereyadii loo adeegsan jiray way iska dhintaan saa darteed baad ku arkaysaa ereyo xoolaha miyiga lagu adeegsan jiray dadka qaarkood iyagoo ka xun oo le dhalinyaradii magaaladu garan maayaan sababtoo uma baahna laakiin noocyada gawaadhiday u yaqaanaan magacyo badan adigu magacyada geela noocyadiisa iska xafidsanow laakiin isna wuxuu xafiday ka miyiguba ma yaqaano noocyada gawaadhida waayo kana gawaadhi badan buu arkaa kana noocyo kala duwan buu arkaayoo geela ah qolada ariga lana magacyo badan bay ariga u leeyihiin dabcan marka iyo noocyadiisa iyo sidiisa iyo waxyaabaha la xidhiidha isaga marka waxyaabaha waxaan uga jeednaa un luqadda dadka adeegsadaa baahidooda way buuxisaa habkooga fikirku markuu kordho ereyo markiiba ama ha soo amaahdaan ama ha samaystaane markiiba way u samaystaan way buuxisaa kuwii laga maarmana way ka baxaan markii sifadii dynamigaynu sheegaynay bay ayay taasi ay la xidhiidhaa ta ugu dambayso oo ahayd su-aashii ayaan leh muusiga dabcan wuxuu ka mid yahay muusigu waxyaabaha luqadda horta luqad markii la yidhaahdo qeexitaanka marba sidii loo adeegsaday ku xidhan tahay luqadda aadan wax isugu tabiyo weeyaan laakiin waa loo adeegsan karaa si majaaz ah oon xaqiiqo ahayn inuu muusigu luqad yahay luqad caalamiyana yahay waayo qof aan qofka kaleeto oon luqadaadii garanayn baa isaga garanaya laakiin noocyada muusigu maxay u kala noqdaan ummadaha marka laga hadlayo waxyaabaha ummadnimada qayb ka mida waxaa ka mid ah dookh waxa dookha la yidhaahdo dookhu ummadnimadu ka mid yahay
saa darteed soomaalidu maadaama ay ummad isku tahay inta ay deegaanka wada joogaan waa dooq oromadu dooq bay leedahay laakiin marka xawsaha la joogo galbeedka afrika degan iyo oromada bariga afrika degan oromada inoo dooq dhow waayo waynu isku deegaan dhownahay marka dooqaasi waxyaabo kala duwan ayuu muusigaasa ka mid noqon kara waxaa ka mid noqon kara cuntooyinka la cuno waxaa ka mid noqon kara waxyaabo noocaas oo kaleeta ah marka calaa kulli xaal waxaa la odhan karaa marka wuxuu la xidhan yahay waxaa la yidhaahdo dooqa la hadlayo wujdaanka dareenka gudaha ee aadanaha waxyaabaha la hadlayo dareenka aadanaha marka saa darteed waxaad ku arkaysaa arrimaha qaarkood oo la sheegayo masalan haddaad daawanayso filin carabiya iyo filin turkiya iyo filin ingiriisa filinka carabiga ah qolada jilaya iyo mar kastuu qoslayo waad la qoslaysaa wuxuu ku qoslayna waad fahmaysaa marka ka turkiga loo tago waxoogaa waad kadib dhacaysaa waxyaabaha qaarkood baad odhanaysaa ciyaal baa maxay ugu qosleen waxaa iyaga dhaqankooga saas inay ku qoslaan waynu kaa yar fogaadeen ingiriiska marka la tago waxyaabo adigu aadan weligaa ku qosasheen bay ayay ku qoslayaan iyagu waxyaabo adigu aad ku qoslaysana way kula yaabayaan haddii la fogaadana mararka qaarkood waxaad u tegaysaa ummadaha qaarkood markay qoslayaan in aad garan weydo miyay ooyayaan mise way qoslayaan markaasaa qolada tarjumaya laughing ay ku hoos qoraan waayo waa marka kale markastay masaafadu fogaato farqiguna wuu la yar kordhaya waa mahadsantiin